bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaanu joognaa boardingka Dalaayad ee ku yaala Balli Kaliil. Maanta waxaanu u nimi inaynu rinjiyeyno dugsiga oo runtii dayacaad xagga ay ka muuqatay rinjiga. Insha Allahu tacaala hawshaasoo doonayna 2 cisho ay nagu qaadatay inaan ku dhamayno. Injineerka kole rinjiga inoo marinaya inoo qaabilsan tiimka hogaaminaya rinjiilayaasha wataa waa Cabdiraxmaan. waxaan ku soo dhaweynay Cabdiraxmaan insha Allah kadibna waxa daawan doontaa hadii bal mas'uulku markuu dhamaado quruxdiisa insha Allah hadii la yiraahdo. wandhowahay waxa weeye saaw sheegay maanta waan bilownay rinjigii ilaa maadii waxaan doonayaa inaan ilaa berri ku gabagabeeyno hadda la ka dhigo sidoo yahayna wada aragtaa sidoo noqon doonana insha Allah wada arki doontaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. hawlwadeennada waan salaamayaa. waxa weeye dayacaadan ka muuqatay marka insha Allah marka laga shaqeeyo waa qurux badan doona dugsigu insana uu iska bedeli doona hadii Allah yiraahdo saan rajeynayno. markaas waxaan leenahay insha Allah jazaakumullahu khayr aad baa u mahadsantiin cid kastoo ka qayb qaadatay hagaajinta iyo wax ku darsiga dugsiga aad baan ugu mahad celinahay. Ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daran ayaan leenahay. aad iyo aad bay u mahadsanyihiin maamulka xigeenka iyo injineerku. intaa kadib insha Allah tacaala waxaan idin soo gudbin doonaa muuqaalka dambe ee ugu ekaan doono iskuulka Dalaayad marka imka la qurxiyo rinjiga la mariyo insha Allah tacaala la socod dambe insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى أيام مهضله maanta waxa weeyaan maalin sabti ah waxaan joognaa dugsiga hoose dhexe ee Dalaayad ee ku yaala magaalada Balli Kaliil degmada Sabwanaag. halkan waxaan joognay muddo 3 cisho ah. waxaan u joognay iskuulka inaanu ka qabanno hawlaha rinjiga. runtiina de sidaad wada arkayseen iskuulka marka hore waad arkaysaan muuqaalkiisa gaar ahaan waliba kijiga kale sidoo madoobaaday oo muddo aan la marinin.
maanta alxamdulilah ilaahay baa mahad leh iskuulkii aad iyo aad buu qurux badan yahay sidoo aragtaan rinjigiina maanta noo dhammaaday muddo 3 cisho ayuu noogu dhammaaday waxaan halkan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay contributionka ama qaadhaanka rinjigan aan ku marinayno iskuulka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wax kaloon si guud iyadana ugu mahadnaqayaa cid kasta oo wax ku bixisay dugsigan The Lion Boarding School Ballikaliil oo bil walba joogto u bixisa ama sanadla u bixisa ama maalinlaba u bixisa cid kastoo xoog iyo xoolo ku bixisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan jecelahay inaanay mar walba lagu dadaalo iskuulkan sidii wax loogu qaban lahaa iyadoo loogu qabanayo helimiye ilaahay dartii labadaba hadda insha allahu tacaala ardayda baahidooda waxyaalaha ugu muhiimsan markaan eegna si gaara waxaa ka mid a qalabka isboortiga haddii ay noqoto dariiska hadday noqoto kubadaha hadday noqoto dariiska kubadda imika maamulihii garabkayga taagan duug waxaan u nimi wiigii hore maalintiisii oo dhowr cishaydan la joognay waxyaalihii aanu ku aragnay iskuulka waxaa ka mid ahayd in wax laga qabto qaybta rinjiga iyadina waa inoo dhammaystirtaa alxamdulilah wiigga dambe ama kasii dambeeya waxaanu insha allah ku tala jirnaa inaanu ardayda darayskii iyo kubadaha iyo kabaha inaanu intaa insha allah u qabanno waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa cid kastoo hawshaa wax nagala qayb qaadanaysa insha allahu oo tv-gan ama daawata sawiradan iyo muuqaalkan iyo maqalkan in ay nala soo xidhiidhaan insha allahu tacaala isagana waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa dalmar xariir oo runtii isaguna aanu 3 cishaba halkan wada joognay isagoo noo qaabilsanaa howlaha duubista iyo howlaha kale labadaba aad iyo aad bay mahadsantihiin hadda waxaan kusoo dhaweynayaa maamulaha dugsiga boardingka The Lion cabdi muuse بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال سدا وقدوميه وشاقي اسكولكي وحوين بالغا قبطي دي أولنا واكوها وشايسنا يزينو أول بيدين كأيا قعنتا كوهيي وحنو لينا هاي دادكي ميشان اسكيلر كاها اما دي حرفادا بروفيشنال كوها والوغو يروي مكا قعنتان كوهينا waxyaalo badan waa noo qabsoomeen wax gudoomiyuhu sheegay iyo dee wax uu ma garanaysa waxaan ku darayaa war maanta 100 inan oo aynu ku tabacno ayaa dhaama 1,000 inan oo suuqay naga gala walaalayaal waxaanu anagu reerahayagii iyo magaaladii iyo meelihii cadcaddaa iyo dhulkaanu ku xoogsanayna uga nimi inaanu carruurtayada kor u qaadno oo aanu wax barro aanu cilmigayaga annaguna aanu kaga qayb qaadano walaalayaal awal baydinka hayay annaguna maanta xagan kuwii ka hayn lahaa ee ka xijin lahaa ayaanu nahay markii hore dee iskuulka waa la dhisay uuno dee hawsha dee horta qutal daruuriga iyo meelaha la seexanayo iyo wixii kale baahi ayaa lagu mashquulsanaa alxamdulilah imka decorationkiisii ayaa loo dhaqaaqay waana laga qurxiyey sidaa dee sawirkaba ku arkaysaan gudoomiyuhuna idin sheegay waxaan leeyahay war bini aadmigu way caajisaan oo markay hawl qabtaan ee ay halka ugu wanaagsan gaarsiiyaan ayay caajisaan way ismacaashiyaan war adduunyadu gebigeedu waa intaa aad nooshahay ayaa laga faa'iidaystaa aakhiradii lagama faa'iidaysanayo war ilmaha kaliya aynu wax baraa qaran dhan buu wax barayaa waa aragteeno nimankan dee madaxda ah nin aan boarding ka soo bixin ma jiro walaalayaal waxaan leeyahay ha loo dadaalo boardingka ha loo dadaalo walaalayaal manfaca aakhirana weydun heli adduunyadana weydun heli magacna adduunyada weydun ku heli aakhirana wax ka qiimo badan ayaa ilaahay idinku abaalmarin doona war walaalayaal aan hareeraha ka joogno idinkana waxaan idin leeyahay intiina wax soo bixisay iyo intiina wax noo soo wadaba ilaahay halkaa ka soo bixiseen ilaahay khayr aan dhammaad lahayn ilaahay ha idinku bedelo